بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أرنتين تهريبكو ومشكلة آد وفولحون قروين له دباتوين له محوها بدن إمك إنه سعتي دليرتني ومحوها حوج عمدة إن بدن كل أتي كل كواحويان wax siyaasada oo cad oo ka muuqda xukuumadihiina muxuuha ma jiraan arinta tahriibku waxa weeyaan Allah u naxariisto kuwii badii dhaweyd maalintii dhaweyd badda ku leeday iyo kuwii ka horeeyayba dadkii eheladiina muxuuha waalidkii iyo eheladiina Ilaahay samir ha ka siiyo Somaliland Ilaahay samir ha ka siiyo dadkii muxuuha ku leeday waxa ay tahay waxa laga abaabulaa magaalooyinka Hargeysa kale laga abaabulaa waxa la saaraa muxuuha taksiya la saaraa ilaa Addis Ababa ayaa muxuuha ayaa la gaarsiiyaa halkaas qolyo kale ka sii qaadaan waxa weeyaan meelaha lagu xidhaa lacag baa laga rabaa waxa laga dhawaajiyaa dadka muxuuha ay meesha geeyaan waxa kulka imanaysa hooyadii iyo waalidkii hooyadu haw daraatee ayaa halkaasi dhibaatadu muxuuha ku dhacda ilmaheedii baa la maqashiinayaa markaas la oranayaa waxa iyo waxa hal keeno ama ha haysteen ama ay haysan kulka ama dhul haw iibiyaan ama daar haw iibiyaan ama dadka ka soo urursadeen waxa weeyaan wixii waa in loo helaa ayay arintii taagay waliba kuwa waxay soo dhan kartaa waaba kuwa nool kuwa dariiqa ku dhimanaya saxarada intay maraan halka ku qurbaxaya haraadku ku dilayo dabatana muxuuha xayawaanku ku cunaya halka ee ku baaba'aya kuwa muxuuha baddu ku daadanaya baddu liqayso sidii kuwii wiigay isbuucii dhawaa muxuuha dhacay iyo kuwa jeelasha ka buuxa oo jeelasha lagu haysto oo dabatana dhibaato weyn muxuuha taaginta kolka tahriib waxa weeyaan waa national muxuuha disaster in haysata wax siyaasado cadna lagama laha si dadkan loo daryeeli lahaa ama muxuuha kolka dhalinyartii dhibaatada u weyn haysata wax weeyaan waxa kalifaya waa maxay in la isweydiyo ay tahay inay tahriibka tagaan waxa kalifaya maxay tahay waxa ay ka imanaysaa inankii kulka hooyadu ama waalidku ka bixiyo school feegii oo tacliintii wato oo jaamacadii ka baxo ee uu haddana shaqo waayo waxa imanaysa maxaad ku noolaataa baa muxuuha imanaysa kolka dadka algacayl wado ma aha sida runta waa baahi baa muxuuha ayaa dabada kaga jirta oo dadkii baahi baa dhalinyartii baahi baa haysa kolka muxuu ku noolaan karaa ayaa meeshii ka baxday dhibaatada halkay ka taala waxa weeye dawladihii dalkan soo maray intii aan la soo noqonay xorriyadda la soo noqonay waxa weeyaan fasaad baa ay inta badan ku jiraan waxay ku nool yihiin arrin muxuuha yaab leh kolkaad u fiirsato ma filaysid ninka madaxweynaha Somaliland inuu ka mushahar bato madaxweynaha Mareykanka wax la fili kara ma laakiin way dhacday waxa weeyaan xukuumaddantii ku horeysay madaxweynuhu wuxuu qaadanayay $6,317 ayuu qaadanayay ka Mareykanku $32,000 iyo wax la jira ayuu qaataa madaxweynaha iminku kolkaad u eegto dawladahan aynu jaarka nahay iyo intay nagu dhadhow way ka fog yihiin wax $12,000 ku dhow bishii ayuu qaataa madaxweynaheena imika jooga waxa kolka muuqata in wixii ummadu lahay ay inuuna ku nooshahay intii kalena ka baqtiyayso waxaad arkaysaa xitaa shaqaalihii waxa maamulku u wanaagsanaan kari lahayaa wax weeye baahida shaqaalihii baan la daboolay waa wax loo leeyahayna ma aha waxba looma laha wixii way jira laakiin sida loo isticmaalayo ayaa ah ما سي أني سمي ساني
ninka dowladda qofka dowladda u shaqeeya rag iyo dumarku doonaba ha ahaadee wuxuu ku nool yahay waxa weeyaan ku meel gaadh 400 buu qaadanaya 300 buu qaadanaya wax ka yar buu qaadanaya kuma filla isagii reerkiisii dabeetana intuu shaqo kale helayo ama ka dhoofayo tahriib gelayo ayuunbuu meeshaa ku sii joogaa ama wax ku dariiqo samaysanay wala waxa loo baahan yahay waxa weeyaan in laga baxo fasahaadka xukuumaduhu ka baxaan oo iminka doorashooyinkan soo socda dadkuna ka taxadiro oo uu dad wax u qaban kara oo uu og yahay inuu vote-kaasi iyo waa inta qoree wax lagu hagaajin karo ayay ayay tahay markaad eegto maanta waxa weeyaan waxa dibadday ka iibsadaan daaro waaweyn qaar way guuraanba oo France bay tagaan qaar South Africa iminka qaar dhawaan baxay baa jiro South Africa iyagii caruurtoodiiba degeen hanti bay ka iibsadaan Abu Dhabi iyo Yurub kala wax weeyaan wixii inagu filan wixii aynu haysanay inama gabin ee waxa dhacday waxa weeyaan meel qura iyo afmeeshaar iyo dilaaliin bay wixii ku socdaan laba arrimood baan sameeyay miisaaniyadda 2015 baan bal wixii aan loo baahnayn baan ka soo dheegay oo aan sameeyay wixii loo baahnaa iyo u kala saaray wixii aan loo baahnay wixii aan loo baahnayn ee laga maarmayay waxay noqotay boqolkiiba 460 ayay noqotay waa 116 milyan iyo wax la jira ayay miisaaniyaddii 2015kii soo baxay tan imika oon wadana waxay maraysaa 73 milyan ayay maraysaa taa hore waxaan 116 milyan iyo wax la jira tan waxay maraysaa 73 milyan weli maan dhammayn laakiin waxa weeyaan intaasoo aan loo baahnayn haddii waxa loo baahan yahay la gelin lahaa tahriib maynaan aragneen wax la'aan ay naguma dhacdeen abaaruhu waxay nama yeeleen beeraha la gelin lahaa xanaanada xoolaha la gelin lahaa waayo xoolaheennii maanta waxay ku jiraan inay dhammaadaan Ethiopia waxay samaysatay meelo lagu qalo xoolaha Soomaaliya iyo wixii ka sheeyana meelaha xoolaha lagu qalay samaysay ilaa Kenya ayaa samaysay xooluhu way inoo socdeen innaga oo dekaduna waxay ahayd dekad beerina meesha ugu habboon bay ahayd kolka wax weeyaan waxaynu isku soo baxsanaynaa inteennii kolka waxay ahayd in lacagayowga aan ka sheekaynayo la geliyo biyaha deegaanka xoolaha iyo beeraha oo la sameeyo la yiraahdo xilli maynu isku filaanaynaa cunto ahaan kalluunkii baynu leenahay badiba wax la gelin karaa kolka wax weeyaan in sidan aynu ku soconaa si aynu ku dhaqmi karro ma aha sida runtii kolka wax weeyaan waxaynu u baahannahay in sidan wax iska bedelaan aan rajaynayana bal in dowladda soo socotaa inay sidan mid dhaanta noqoto dhalinyarta iyo dadweynuhuna gacantooda u taagaan qoladii barnaamij wanaagsan la timaan ee daacadnimana ku jirto ilaa waa la iswada yaqaanaayo ninkii mansab soo hayay waa la garanaya kolka dabeetana waxaan odhan lahaa sidani si lagu noolaan karo ma aha waxa weeyaan inaynu wax ka bedelno sidan oo dhalinyarta shaqaalaha ciidamada reemiyiga waa dadka inta badan ku dulman dhaqaal ahaan xagga dowladda in intaasi ka yeelato tala ka yeelato oo dabeetana ay iyagu hoggaamiyaan kolkaa siyaasadda dalka lagu dhaqayo waxaa loo fadhiyaa jaad baa loo fadhiyaa waxa inagaga baxaa $180,000 maalintii oo dollar ayaa Ethiopia u gudba intaa kolkaad bishii ku dhufato ee sanadkii ku dhufato waa lacag aad far badan waa waxaan aynu guryaha ugu jireen dadkii madax dadkii mudakarkan ahaa ay u fadhiyaan fadhiga maxay ka macaashaan waa waqti lumis kolka hore wax weeyaan intaasoo saacadood ayaa la fadhiyaa cudurraa laga qaadaa ilkaha ku jajaba imika kolkay dadkan jadcunkii kula hadlayaan candhuufta kaaga soo boodboodaysaa kolka wax weeyaan waa wax ay tahay inaynu ka yeelanno siyaasad ka yeelanno
haddaba tameesha taalla waxa weeye jaanis baynu haysanaa iminka aynu isbeddel ku samayn karro oo dhallinyarta iyo intaa aan sheegay ee dulman shaqaalaha iyo muxuuha ciidamada iyo muxuuha reemiyiga iyo intaasi votkooda ay meel u dayaan oo laga baxo reernimadu mashaakilkeedu waxa weeye xaaska labada xaasuu ninku wada qabo ayaan heshiis ahayn iska daa wixii ka shisheeyey kolkaa waxa weeyaan qaran iyo qabiil meel ma wada joogi karo waa in qabiilka laga baxaa waayo xad ma laha uu ku joogsado cadaalad baynu u baahannahay cadaalad waxa weeyaan xagga shaqada cadaalad baynu u baahannahay xagga meheradaha cadaalad baynu u baahannahay waxa weeyaan kolkaad cadaalad hesho waxaad ka maarmaysaa xidhniinkii aad qabiilka ku xidhnayd baad ka maarmaysaa haddii la yidhaahdo shaqaalaha iyo ciidamada biliiska iyo militariga ha lagu qoro imtixaan ha lagu dallacsiiyo imtixaan dadaal baa imanayo dadku waxbuu kororsanaya kolkaa way ka fiican tahay waxa weeyaan kolkaa isqabqabsad iyo waxaanina way haydha qabiilkeena wuu daciifayaa sida runta ah oo dee ilaahay wuxuu yidhi innaa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu inna akramakum baa ka dambaysa cinda allaahi atqaakum kolkaa waxa weeyaan inaynu ogaano inaynu qabiilkii ka maarmi karro cadaaladda iyo muxuu ahaa iyo horumarkaasoo la sameeyo uu ku baabi'i karo baahidiisu yaraan karto kolka baahidiisu yaraatana waxa weeyaan looma muxuu ahaa dadaalkii loo dadaalayay reerka ayaa meesha ka baxaya kolkaa waxa weeyaan inaynu helno maamullo wanaagsan oo muxuu ahaa hawshii ummaddu u baahnayd qabanaya ninka DG-ga ah qaar baa jira elementariga ka baxay oo director general ka ah wasaaraddu kolkaa kaas muxuu kordhin karaabaa su-aashu maxaa noqon waa inuu ninku aqoon lahaadaa waa inuu experience lahaadaa waa inuu muxuu ahaa qiyamkiisu wanaagsan yahay kolkaasaa la odhan karaa muxuu ahaa ayaa haddii taa lagu soo xulanayo kolkaa way toosi lahayd dadkuna wuxuu u tartami lahaa inuu wax kororsado oo uu tacliin kororsado oo uu muxuu ahaa shaqadiisa hagaajisto oo uu halkaa dabeetana promotionkii iyo wixii uu ku dhammaysto kolkaa waxa weeyaan sidan aynu nahay si wax ku soconaya ma aha burbur baa iminka aynu xaggiisa u soconnaa dhismihii wuu inoo harsan yahay lacagayowga aan sheegay ee waxaan loo baahnayn la gelinayo in la geliyo oo dad dhalinyarta laga caawiyo beeraha kolkay la yimaadaan iyo arrintii in xoolo dhaqii laga caawiyo oo shuruuda lagu xidho shaqaa ka abuurmi lahayd waa in shaqadii wixii aynu ku abuuri lahayd waynu haysanaa sidii loo farsamayn lahaa biyo xidhaanka kolka la sameeyo ee beerihii iyo dadkiiba muxuu ah xoolihii baa dhaqmaya kolkaa adhigeennu 2 jeer buu dhalaa sanadkii kolka si wanaagsan loo xanaaneeyo kolkaa xoolahan inaga dhammaanaya waxaynu kaga soo kaban lahayd inaynu xoolihii dhaqno xoolihii xanaanayno ayaynu kaga soo kaban lahayd waxay la tahay isbeddel baynu u baahannahay isbeddelka dowladeed ee soo socda aynu ka tashanno oo sankaha laga tolo nimanka madaxda inayna food ku helayn waxaan ta kale ka sii xumi waxa weeye madaxweynaha kale wuxuu kaga tagaa waxay aan anigu xumeeyaha ii raacan waa heshiis aan ritana oo kii ka horreeyey madaxweynihii ka horreeyey lacagta aan anigu guddidii soo saartay ee la lunsaday surpluska ahayd waxay ahayd 350 milyan kolkaan ku daray 4 bilood oon mushaarkii shaqaalaha la bixin 2 bilood oon tii ciidamada la bixin muxuu ahaa raashinkii ciidamada iyo kii cusbitaallada iyo kii jeelasha kolkaan oo sanad isgaaray kolkaan intaa isku daray iyo sanadka July ilaa December wixii lagu shaqayn lahaa kolkaan ku daray waxay isla noqotay 123 milyan ayna ku jirin daarihii iyo dhulkii la lunsaday shuruudda u weyn waxa weeye dadkii wixii uu lunsaday waa inay dowladda timaadaa ka daba tegi ay ballan ku qaadaa oo dabeetana saalo kolkaa waxa weeyaan aynu adkayno oo dadweynuhu hawshiisii ha ka fekereen ha qabsadeen dhalinyartuna abaabulkeeda ha lahaato asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu